kulan wacan dhagaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wadaagga oo ay idiin soo diyaariso dallada Sooma oo ah dallad ay ku midaysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka howlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Somaliland. barnaamijkan wuxuu idiin soo gudbinayaa warbixino bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaaladaada iyo meel ka baxsanba. anigoo Axmed Tifo ah ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. maantana waxaan ku eegi doonaa haween la kulmay xadgudub uu ka mid yahay kufsiga oo helay tababaro iyo shaqo abuur, dadka qaba baahiyaha gaarka ah oo dalbanaya inay helaan matalaad rasmi ah, iyo warbixin aan idinkaga hayno abaaraha ku dhuftay gobolka Galgaduud oo saameyn xoogan ku yeelatay xoolihii iibka ahaa. aan ku bilownay haweenka danta yar ee la kulmay dhibaatooyinka ay ka mid yihiin in loo diido lacago ay xaqa u lahaayeen kadib howlo ay dad u qabteen, iyo kuwa kale ee kufsiga la kulmay ayaa helay tababaro iyo shaqo abuur ay u samaysay hay-ad ka shaqaysa ka hortagga dhibaatooyinka haweenka loo geysto. qaarkood waxaa la baray xirfado ay ku shaqaystaan iyadoo kadibna la siiyey qalabkii ay ku howlgeli lahaayeen, halka kuwa kalena loo sameeyey ganacsi si ay noloshooda u maareeyaan. haweenkan ka faa'iidaystay shaqo abuurka iyo tababarada la siiyey ayaa sheegaya in tani ay wax badan ka bedeshay noloshooda oo markii hore walwal badan haystay. Shukri Caabi oo Muqdisho ku sugan ayaa ku eegaysa warbixintan. 60 haween danyar ah oo la kulmay dhibaatooyin xadgudub iyo tacadiyo jinsi ah ayaa hadda helay tababar, daweyn iyo shaqo abuur iyo xirfado kala duwan oo ay barteen, kuwa oo hadda nolol maalmeedka qoyskooda ka soo dhacsada waxyaabihii ay barteen intii ay qaadanayeen tababarka ay siisa hay'adda Hina oo ka shaqeysa arrimaha tacadiyada loo geysta haweenka danta yar ee ku nool kaamamka barakacayaasha ee ku yaala gobolka Banaadir iyo duleedkiisa. Fardowso Cabdi oo aan ahayn magaceeda saxda ah qofta aan la kulanay waxay ka mid tahay haween loo geysto kufsi. waxay Sooma u sheegtay in 2 nin oo hubeysan midna uu watay midi midka kalena bastoolad ay weerareen xilli ay ku sugneed meel u dhow xerada Bangala ee degmada Dayniilo oo ay deganeed markaa oo ay ka soo guranayso qoryo ay ka raadin jirtay nolol maalmeedka caruurteeda. waxay xaqiijisay in la garaacay lagana kaxaystay banaanka xerada oo ah meel uu ku badan yahay geedka loo yaqaano geed yahuudka ay shaqada ka haysay oo la geystay meel ka fog wadada jidka oo aysan marin dadka iyo gaadiidka, kadibna la kufsaday. ma jirin laf jabtay, laakiin waxay inoo sheegtay in jug culus la gaarsiiyey oo nin ka mid ah ragga kufsaday uu kabihiisa oo buud ahaa madaxa uga garaacay ilaa ay tabar beeshay. Fardowso ah hooyada 9 caruur ah oo agoon ah, markii uu dhibku gaaray waxay dib ugu soo laabatay xerada Bulshakaab oo ay deganeed tan iyo 2017 kadibna waxay dhibka gaaray la wadaagtay maamulka xerada, waana lagu guuldareystay in gacanta lagu soo dhigo labadii ruux ee dhibaatada geysatay. inkastoo 2 maalin kadib la geeyay xarunta hay'adda Hina ay ku leedahay xaafadda Bangala oo lagula tacaalo haweenka loo geysto tacadiyada. halkaasi waxay ka heshay in marka hore la hubiyay dhibaatada gaartay, kadibna kalkaaliyayaashii caafimaadka ay siiyeen dawooyin iyo la talin, isla markaana xaaladeeda lagula socday muddo 3 bilood ah. hadda waxay joojisay Fardowso qoryihii ay banaanka ka soo guran jirtay oo nolosha qoyskeeda ku tiirsanaa, maalinkiina ay ka heli jirtay $2 ilaa $3. waxaa shaqo abuur iyo la talin ay ka heshay hay'adda Hina iyadoo la baray harqaanka, kadibna la siiyey waxa ayna ka dabartaa masruufka qoyskeeda. أنا قرية أرونا لوني حوجين ساسا أنت اللي كان داوي وحاسة لي سيء في ماذا داوين السيسة وحقيقة قوتي شقاء السيسة شقاء واحدة مات